aan ku bilaabay 31 bishan kooxda shabaab waxa ay weerar ku qaaday hotel Afrique oo ku yaala agagaarka kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho xilligaasi hotelka waxa ka jiray kulamo waxa kale oo ku sugnaa dadweyne aad u fara badan oo halkaasi u tagay howlahooda kale dadkii ku geeriyooday Allah u naxariistay waxa kamid ahaa General Maxamed Nuur Galaal oo kamid ah saraakiisha khabiirka ah ee wadanka u haray ayeshe waxa uu ku geeriyooday isla hotelka Afrique waxana halkaasi oo kale oo ku geeriyooday dad kale oo fara badan oo goobtaasi ku sugnaa haddaba Allah u naxariistay General Maxamed Nuur Galaal geeridiisa iyo qaabka markaasi ay wax u dhaceen waxaan qadka telefoonka aan kula xiriiray General Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacde oo aan bal wax ka weydiiyay inta laga og yahay General Galaal waxa gaaray bismillah alhamdulillah ma tiskale taanka horta ilaahay ma uu naxariisto anaga kanuu ma joogno hotelka gurmadan ku imid Hussein iyo anaga bixinay taanka marka waxaan oo sheegay in la bixiyay laakiin lama bixin laakiin waxaan tagay taanka meeshii uu ku dhintay waa gartay taanku meesha xabad uga tiirina waan bala socda arrintaas marka anuu tuun badan baan ka qabaa inuu taanku gacanta shabaabka ku baxay markaan anuu aqoontayda kaashaday iyo sida wax ku dhaceen waxaan tuun badan ka qabaa in uusan shabaabka gacantooda ku darin jananku sida awgeed waxaan u soo jeedinayaa dowladda Soomaaliya in arrintaas la baaro oo dad lagu kalsoon yahay oo ehelkiisii iyo dad waxyaqaana iyo dad dowladda ka socda isugu jira inay arrintaas baaraan aan soo jeedinaano waa gartay marka sababta shakigan ku gelisay ee aad arrintaas aad dawladda uga codsanaysid oo aad shabaab uga bari yeelaysid maxaa ka xusi kartaa waxaan ka xusayaa horta jananka xabad khalaadkii uga xabaa ku dhacday halka xabana khalaadkii uga qaaday waa gartay janankuna wuxuu joogay barandada qolkiisa barandada qolkiisa waxaa la yiilay nin bamba F1 gacanta ku haysta waa gartay ninkaana wuxuu yiilay meel u jirta hal mitir waa gartay ninkaa meesha halka mitir u jirta yaalay meesha uu yaalay kuma uusan dhiman haye waa la soo dhigay laba sarbood buu cadeynaysa inuu dhiman la soo dhigay horta kuma dhiiga ma yaalin meesha oo dhiig qalabka labaad sariirta agteeda la soo dhigay 5 farood oo dhiig la ku yaal oo iskaday oo joodaga iskaday qalabka saddexaad jananka iyo nin F1 haysta waa iskor saaraayeen waxay ku wada dhinteen hal mitir saddex qof oo hubaysan oo dagaalade oo nin walba qora haysto ma kuma wada dhiman karaan 2 mitir ma kuma wada dhiman karaan qalabka labaad jananka halka xabad maxaa khalaadka uga dhuftay ninka babadista maxaa kor saaray maxaa hal mid iskor saaray nin keenay أنا waxaan aaminsanahay labada nin ee meesha soo dhigay oo la soo qaaday labada nin ee dilay banaankiisu ku dilay aniga saaxiibkiisa aan ku baaqa inuu mali dawladda u dirtay
laakiin waxaan aaminsanahay shabaabka labada nin jananka way u socdeen waa sax jananku bambooyin badan uu riday nimanka banaanka uu ku dilay lama soo geeyay barandaduu joogay barandadaa jananka lagu dilay labada ninna meesha badan saasaan anigu aaminsanahay aqoontayda waa ciidan aqoontayda baaritaan aragtidayda anigu saasaan aaminsanahay waa gartay marka labadan Allah u naxariistay Generaal Galaal labada ruux la geeriyootay oo meedkooda meesha yaalay ma shabaab bay ahaayeen mase ilaalo kale oo jananka uu watay mase hoteelka ma shabaab ay ahaayeen labadii nin sida labada nin toos markay soo galeen hoteelka dirta qolka jananka waa janankuna min diyaarsan u ahaa odayaa keeya qasnada weystay bambooyina weystay bastoolada weystay nimanka asagaa dilay u dagaalama anusaan aaminsanaa labada nin asagaa dilay waxaa kala taala 4 saac ayadoo waxa dabalka dhacay arag hoteelka oo jananku nabadqab lagu tuhma inta xabada dhaqaan hoteelka dhexdiisa askartidan ninkii la raadaayo waa la helay keena asaan martay waa gartay waxyaalahaas oo dhan markaan isu keeno anugu waxaan arkayaa jananka inuu sakan shaabku marka muddo intee la eg buu deganaa Generaal Galaal Hotel Afrique ama Muqdisho waxa kale Generaal Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad indhacade arintaasi shakiga aad gelisay intii ama xubnihii kale cid aad la wadaagtay ma jirtaa oo marka loo fiiriyo ama saraakiil ama cid kale oo aad arintaasi la wadaagtay ma aragna lama wadaagin yani dadka ehelka marka waa isu sheegnay arintaas halkan waa wada areen dad badan oo kamid ah arintaasna saaqan ku wada qanacsannahay تفكيرش في حالي وبعانتا بارتان في حالي وبعانتا انتو ردو يدك اهلكا يأتكالي والله كالسوين هاي ناشاك إلا بارو يكاد على الصناعي marka yaad ku tuhmaysaan oo maadaama shabaab aanu dilin ma gacanta waxaan ku tuhmaa ciidankii dawladda aan ku tuhmaa waa gartay marka ciidanka dawladda xilliga ay meesha galayeen waa mar dagaal uu socday ama iska hor imaadka uu jiray marka miyaanay ka hor wax dhici karin jananku waa isdifaacaan ku ori labada nin asaga aadeen labada ninna wuu dilo way dhinteen asaga gacantiis ku dilin anugu saan aaminsanahay ama meesha ka muuqato sideedaba hal xabaa jananka khadaadka looga dhigto hal xaba u dhinta jananka taa wax kale male jananku magaalagaal u diriraayo dagaalgaal ma u diriraayo ninka abwanta sita oo dilay soo sii jeedo dilay dagaalgaalna xabadooda dhacan jananka maya ugama dhacan ninka waa lasoo kordhigay janankana yani qadaadka xabadda uga taaba xabad lagu dhiftay niman dirida oo hubaysan oo qoriyo sita miya hal mitir 2 mitir isugu yimaado ma isugu imaan karaan sala isugu imaan karaan ma jirto cid kasta iyadana oo caawa imaqleena way xasuusan kartaa jananka iyo ninka nin waa iska sahray ninna wuxuu jiray hal mitir waa dhulka wada yaala haddii uga hal mitir bar u jira ama hal mitir ninkaas dhiigga ka yimi dhiig doora ma qabo ninkaas oo halka mitir u jiray oo qolka dhayaala waliba barandada soo egta dhiigga ka yimi ma dhiig dooro meeshuu ku yaala marka way iska caddahay in nimankaa meesha la socday way iska caddahay
aniga aqoontayda marka dawladdu waa inaan waxaan ka codsanaa inay baaritaan ku samayso waa gartay jenaraal indhacadde marka aad hadalka sidaadaad u dhigaysid waxa shakigan ku geliyey ciidamada dawladda ah markii horeba ma aanay joogin waxa ay ku yimaadeen dhacdada awgeed marka maxaad isleedahay waa lagu beegsan karaa janalka oo dawladdu waa ay u aadaysaa maxaa tuhun ah oo aad qabtaa waa tuhunaan qabaa janalku dhowr jeer horta dawladda arrimeeda ka hadlay oo si fiican uga hadlay oo maaragtay shirar badan oo dawladda lagu horjoogo ka qayb galay anuu marka ma qabo in dawladdu ama madaxweynuhu ama ra-iisul wasaaruhu inuu yidhi jenaraal galaal hala dilo ma qabo aniga ra'yigaas ma qabo laakiin si kastaba ha u timaado janalku waxaan aaminsanahay inuu gacanta ciidamada ku baxay waa gartay marka ciidamadaasi goobta galay ma la yaqaanaa oo dawladda ah waa la yaqaanaa dawladdaa taqaanaa nawaade ma ciidamada dawladda ma magacayeynayno hebel ma dhahayno laakiin ciidamada dawladdaa gala meesha waa dawladdaa marka waxa kaloo aan ku weydiiyey dhacdadii waa ay dhacday shakigaasna waa uu jiraa ma laga yaabaa cid kale oo aad isleedahay ciidamadu waxyeelay u geysteen oo marka janalka laga reebay in ay jirto markii laga reebo hanti markii laga reebo anugu ma ogi mana baarin laakiin hoteelka waxba loogama tegin waa looga tegaa oo yaraatay waa gartay maxaa laga qaatay qalabkii uu lahaa ama wixii laga qaatay wax alla wixii qaadmi karo dhana laga oo jenaraal galaal marxuumka alaabihiis maya hoteelka oo dhan waxaa wixii la qaaday waxaan ka hadlaynaa jenaraal galaal qolkiisii ama jenaraal galaal qolkiisa waxaa laga qaatay intaan hubo qoray u haystay basoladii wax kaloo documenti ah documenti kale waa yaalay laakiin hoteelkaba wax loogama tegi oo dhamba kale shakiga weyn waxaa geliyey kaameradii iyo kulligii waa la jijibishay oo hoteelka uu lahaa ma kaamirada ma inta aan qaraxu dhicin ka hor baa la qarribay mise kadib maya lama qaraxa kaamirada hoteelka wuu shaqaynayay kaamiradu waa shaqaynaysay dagaal kasta ha dhaco kaamiradu meel wax laga baaray leeda kaasi waxa uu ahaa jenaraal sheekh yuusuf maxamed siyaad indhacadde oo qadka taleefonka iigu warramayay isagoo ku sugan muqdisho